kani waa garoonka diyaaradda sawiro wadan oo usbuucii sameeya 2 duulimaad oo kaliya gebi ahaanba wax ka go'aya adduunka bartamaha badweynta Pacific waxa ku yaala wadan yar oo hela inta badan dakhligiisa which is .tv. xitaa xabsigoodu uu furan yahay Tuvalu is like a little dot. You'll be lucky to even find it on a map. This country is wadanku dherer ahaan waa 12 kiiloomitir oo kaliya balliciisana wada aragtaanba waa wadanka ugu yar ee la boqdo dunida sanadkii 2023 kaliya ku dhawaad 3,000 oo qof ayaa boqday dunida oo dhan waa maxay ujeedada ka dambaysa this country is sinking. waa wadan leh hal wado oo dheer The country is one street. dhanka kalena dalku galowga ma baahna wadankan dalxiisayaashu ma booqdaan maanta ayaan booqan doonaa wax badan oo ka soo ogaan doonaa muuqaalka 10 oo like gaarsiiya subscribe channelka Inamaria Let's go. markii aan duulimaadka qabsanayay waxaan ogaaday in duulimaadka kaliya ee lagu tago uu yahay Fiji iyadoo la raacayo diyaaradan yar maxaa yeelay Tuvalu ma laha runwayga diyaaradaha waaweyn ee ku habboon waxaa jira kaliya 2 duulimaad usbuucii tani waa mid ka mid ah sababaha ay Tuvalu u tahay wadanka ugu yar ee la boqdo dunida sidoo kalena waa sababta loogu cabsi qabo dhawaan inay baduluqdo haddaba aan tagno waxaan u socdaanaynaa wadanka ugu yar ee la boqdo adduunka oo waqti taariikhi ah ma garanayo waxaan ugu sugaya halkaas inta 2 maalmood ayaan joogi doonaa inta ay Barcelona iyo magaalooyin kale ay isku dayayaan in tirada dalxiisayaasha la yareeyo halkan Tuvalu dadku waxay rajeynayaan in dalxiisayaal ay yimaadaan It's just the island where my people come from. Tuvalu. diyaaraddu gebi ahaanba way marnayd waxaan ku soo degnay Funafuti caasimadda Tuvalu dalka oo dhan waxa ku yaal kaliya 4 hotel inta badan waxay ku yaalaan agagaarka garoonka diyaaradaha markii aan weydiiyay waxa la ii sheegay waxaad ku wanaagsan tahay inaad lugayso The hotel's here. wax gaadhiyo u baahnid inuu ku geeyo hotelka ee cagaha maal Just walk. All right. He said lugtu waa ta ugu habboon ee lagu joogo Tuvalu wadanka oo dhan waxaad ku booqan kartaa socod it's walking. maxaa Tuvalu ku dhigaya meel ay dadku booqdaan waxaan u soconaa dhankii hotelka dadkani waxay ka baxayaan garoonka diyaaradaha hotelku halkan lagu ku yaalaa aad ayuu u dhow yahay xitaa dadka Fiji oo daris la ah waxay si yar u yimaadaan halkan sidana waa salaantooda In their language. Talofa. You have restaurant? This is the only restaurant here. hotelka waxaa ku yaal qolal ku dhow badda waxaa jira kaliya hal maqaayad Tuvalu. hal xafiis boolis iyo weliba sidoo kale hal xafiis oo isgaarsiinta ah halkanna waa goobta kaliya ee aad ka iibsan karto simikaar waxaan wadanka oo dhan ku booqan karnaa kaliya 10 daqiiqo kaliya ku dhawaad 11,000 oo qof ayaa halkan ku nool xitaa garoonka kubadda cagta ma buuxin karaan Tuvalu waa meel aad u yar dadka ku nool waxay maalin kasta sarkaan 5 ilaa 6 jeer waxaa mamnuuc ah in qof kasta baabuur iibsado kaliya saraakiisha dawladda ayaa iibsan karaa sababtoo ah meel ku filan looma hayo wadanku wuxuu ka kooban yahay 26 kiiloomitir oo laba jibaaran waa mid ka mid ah wadamada ugu yar adduunka wuxuuna kaalinta afraad kaga jiraa caalamka This is Tuvalu. Assalamu alaikum.
halkan ayay dadku ku aasaan meydka. Mawjadu way sii xoogaysanayaan, mootada meelaan ku qarsanno aan raadsanno. Waddankan wuxuu wajahayaa biyo korodh, dad badanna way noqdeen qaxooti cimilada aawadeed. Waxaad dhankan ka arkaysaan webiga dhinaca kalena badda. Tani waa barta ugu ciriirisan waddanka. Mararka qaarna gebi ahaanba waa la qubaa marka baddu korodho. Waxaan ku mari karaa hal tallaabo oo keliya goobtan. Halkan waa waxa goobta qashinka ee waddanka lagu qubo. Waxay qashinka ku gubaan dhammaadka jasiiradda, laakiin dad badan ayaa qashinka ku tuura meel kasta. Waxaan gaarnay dhammaadka ugu dambeeya ee waddanka. Kani waa guriga ugu dambeeya Tuvalu, balse wara gurigaaga ugu dambeeya waddanka. Kanna waa marinka loo maro dhammaadka. Halkaas waxaa laga arki karaa dharka guud ee waddanka. Kadib waxaan gaarnay dhammaadka kale. Fiiri muuqaalka. Halkan ayaan joogaa dhammaadka Tuvalu. Indian sun rise above the mountain. Miyaad xasuusataa ninkan 2021 iyo hadalladiisii? Kani waa wasiirka gaadiidka tamarta isgaarsiinta iyo hal-abuurka. Magaciisuna waa Simon. Halkan ayuu wasiirku istaagay markii uu dunida u jeediyay hadalkiisa markii uu la hadlayay caalamka isagoo leh waddankeena wuu quusayaa in laga soo gaadho. In Tuvalu. Waa ninka ugu caansan Tuvalu oo waddan si weyn ugu tiirsan kaalmo caalami ah. Dalal badan ayaa taageera Tuvalu si ay ula tacaasho dhibaatada cimilada isbeddelaysa. Waxayna leeyihiin wasaarad u gaar ah, waana tan iga dambaysa wasaaradda isbeddelka cimilada. Dadku inta badan waxay eedeeyaan Mareykanka. Qaarkood waxay xirtaan muraayado leh qoraal oo climate change ay ku qoran tahay. Sida ay deegaanka u kordhiyaan qaybo ka mid ah biyaha ayaa laga buuxiyay ciid sida Palmi Island ee Dubai. Qaar ka mid ah dadka deegaanku waxay ku qasbanaadeen inay si ku meel gaar ah ugu guuraan guryahooda markii la burburiyay guryahan. We give them the materials To build. to build the house. Waxaa khatar ku jira waxay heleen kaalmo agab ayaa la siiyey si dib loogu dhiso guryahooda, balse Are you scared from losing your home? Yes, that's very scary living here and experience this. Right, so here education is free from primary school up to high school, but we don't have a university. Tuvaluans go to Fiji for university. So Australia and New Zealand have a migration schemes in place. We're also concerned that maybe all our qualified people might end up migrating overseas. Tuvalu waxay leedahay hal bangi oo keliya. Waa halka keliya ay dadku lacagta kala soo baxaan ayna ku shubtaan. Ma jiraan ATM, sidoo kale ma jiro credit card ama debit card. Lacagta la isticmaalo waa dollarka Australia. Dhammaan dadku gacanta ayay lacagta looga dhiibaa, cash ayaana lagu siiyaa. What are you going to do? I'm just checking my pay. To check your balance, you have to come here. They check. Ugu dambeyntii waxaan booqannay xabsiga keliya ee waddanka. Kani waa xabsiga Tuvalu. qayb yar laakiin mise maxbuus ayaa halkan ku jira ayaan weydiinay. Wuxuu inoo sheegaa 3 maxbuus oo kaliya inay ku jiraan. Xabsiguna wuu iska furan yahay. Halkan Tuvalu xabsigu wuxuu ku shaqeeyaa kalsooni. Maxaabiistu ma ogola inay baxaan maalintii, laakiin albaabadu way furan yihiin. Waxaa xitaa gudaha ku jira kombiyuutar loogu talagalay ciyaaraha fiidiyooga. Mid ka mid ah maxaabiista halkan jooga ayaa inala wadaagaya inuu 3 sano ku jiray. Ma baxa maalintii oo keliya, saacadaha shaqada ayuunba la fasaxaa oo ay soo shaqaystaan, kadibna way ku soo laabtaan xabsiga. Tuvalu waxay sidoo kale leedahay koox qaran oo kubadda cagta ah. Waxay isku dayayaan inay noqdaan xubno FIFA, laakiin mid ka mid ah shuruudaha waa in garoonka Field is buuxiyo. up to standards. As you can see, our stadium is falling apart on that side. ciyaaraha khamaarka ayaa halkan caadi ka ah. Ma maqashaan codkaas? Aynan idin tuso. They're gambling. Only number 9. 37, 37, 82, Maanta qiimuhu wuxuu marayaa $3,000 Australia. 77,
77. dadku halkan waxay maalintooda ku qaataan kalluumaysiga, khamaar, cabitaan iyo cunno. Waa nolol aan caadi ahayn. waxaan weydiiyey ilaha ugu weyn ee dakhliga Tuvalu halkee ayuu ka soo galaa. So you know how countries are assigned internet domain name? Yeah. So for UAE is .ae, Yeah. Fiji is .fj, Tuvalu is .tv. And .tv is actually very popular. So if you see any website that uses .tv, that they're paying us, the country, to use that. Twitch.tv is one of the biggest Live streaming. website, and they use .tv. They pay us annually, but the total revenue that we get from our .tv domain name a year at the moment is around 12 million Australian dollars. That's good income. Yeah, it's very good, very good income. I want to ask you about if there is like rich people here. You won't see it. kuma arkaysid Tuvalu milyaneero, ma jiraan Lamborghini. Yeah, no, but even if I mean, there are some people that are well off. They make their wealth overseas and they come here. waddankan yar wuxuu leeyahay baarlabaan, jasiirad kastaana waxay leedahay wakiil. saraakiisha dowladda oo ku jiro ra'iisul wasaaraha dalku waxay ku nool yihiin meel isku dhow. intii aan joogay dalka waxaa laynaga casuumayaa meel aynoo qorshaysnayn oo waxaan ka qayb geli doonaa aroos. xafladaha ay dhigtaan waa xafladaheena aroosyada oo kale. waddanka dhammaantiina waa lasoo wada casuumaa. maxaa ugu quruxda badan Tuvalu ayaan weydiiyey. See families and friends. Whenever we have a function going on, we always come together. Because it's small, that's make it more beautiful. Yes, because it's small and it's everyone is pretty much related on the island, and you get to know everyone. One-way street. It's paradise. But like, do you feel bored here? No, not really. Because you get to enjoy with friends. You get to go out swimming. wakhtiga cadceeddhaca runwaygu wuxuu isku beddelayaa garoonka kubadda cagta. They're dadku playing halkan ay isugu football. imanayaan si ay ugu ciyaaraan kubadda cagta. kana waa calankooda. Tuvalu astaan muujinaysa waddan xorriyaddiisa ka helay Britain sanadkii 1978. For Tuvalu is all the islands are underwater, for example. How can we exist as a people? Can Tuvalu continue to exist without a physical territory, without land? Is that even possible? So if, say, we lose our territory and we relocate to somewhere else, Tuvalu would still own the ocean, our maritime zones, and the resources, The area. the area and the resources that is in our waters. Simon, thank you so much, man. Great, man. Thank you. waad ku mahadsan tahay inaad nala safartay. waxaan gaadhay dhammaadka Tuvalu, jasiiradda ugu fog adduunka. like saar muuqaalka, subscribe na janaalka. mahadsanid.